hibada iyo in dabcan la curiyo businessyo cusub waxaas leedahay waa ayraahda hal abuurka iyo businessyo cusub la curiyo waxaas leedahay waa hibo mise waa xirfad la baran karo oo la qabatimi karo la samayn karo horta runtii waa xirfad loo baahan yahay in la barto dadku laba sibay ku bartaan marka qof waa qof sida u badantiin waxbarasho ku soo bartay accounting business ku soo bartay wakaa qofna waa qof on job training ahaa shirkad buu la shaqeeyey hantiya leeyihiin buu ka shaqeeyey waxaas wax ku bartay laabud laakiin waa inuu qofku fahmaa laba gacan dhexdooda ribixa yaala markaasuu wuxuu dhihi karaa qofkan faa'iidaan samaynaya waxyaabaha business baa arkaysaa la furayo haddana xirmaya la furayo haddana xirmaya la furayo haddana xirmaya sababtu waxa waaye waxaan studyna looguma samayn qarashkii iyo budgetkii iyo wixii gelayay wixii ka baxay lama samayn waxay keentaa wax kalena waa jiraan oo cilada waddankeena aad ugu badan waxa waaye qofku waxbuu abuurayaa qofkii ehelka u dhiibi mayo qofkii ehelka u ahaa waxaan maaha ehelkii la dhashay qofkii ehelka waxaan u ahaa u dhiibi mayo hotel buu furanayaa 30 qol ah waa qurxinayaa lacag dhowr boqol oo kun oo dollar buu gelinayaa wuxuu rabaa inuu shaqeeyo gabar uu adeeriyo u dhiibayaa wiil abtiyo u dhiibayaa nadaafadii wuxuu keenayaa gabar 3 ciyaal haysato qaraabayo inuu leeyahay ku bagcisiye nadaafadii baan standardkii ahayn kii sabka joogay baa waxa uu ku dhaqmaayay aysan sax ahayn qofkii la yiri wixii maamulaha hantidu waxay u baahan tahay aqoon iyo ehel iyadoo hibada rabbaaniga ay kaabayso laakiin laabud qofku waa inuu wax ka bartaa waxa hadda magaaladeena markaan u soo noqono hoteliska waxyaabaha ugu badan ka jira ka businesska ugu badan oo la sameeyo hotelada iyo maqaayada maadaama magaalo dadku isugu yimaadaan u fiirsada dadkeenu waxay ka shaqeynayaan maqalka inuu joogo ama inuu administration ka yahay hadday bilaabeen gabdhuhu inay dhahaan waan ka shaqeynaynaa inaan meelaha iska shaqsanayn hal ninoo waiter oo hebel aad leedihiin oo maqaayada hebel ka shaqeynaya dadka kuma jiro $400 $300 bay qaadanayaan fikradda saxda ah waxa waaye marka arinkana barashana wuu rabaa oo in la barto way u baahan tahay joogtayna wuu rabaa tusaale ahaan aniga hadda waxyaabaha aan sameeyey waxaa ka mid ah shay baad qorshe ugu talagalaysaa qorshihii aa ugu talagashay ma keenin ma dhicin inuu meedgareeyo waxaan ku qasbanaa inaan kaba si u gaaro booskiisii